Assalaamu calaykum kusoo dhawaada barnaamijkeena cusub kaasi oo aynu kaga hadli doono hadaladii iyo odhaahyadii ay soo wariyeen aqoonyahanadii iyo culimmadii caalamkan soo martay. Dr. Ibrahim Al-Fiqi waxa uu leeyahay maalin kasta oo ku soo marta waa hadiyad uu Ilaahay ku siiyey. Ha ku lumin inaad ka fikirto mustaqbalka iyo waxa soo socda iyo inaad ka shalayso dhibtii shalay ku soo martay. Kaliyaata waxaad tidhaahdaa Ilaahay baan taladayda u dhiibtay oo tala saartay. Maxamed Cali Kalaa'i feedhiyaankii muslimka ah Allah u naxariistay isagana waxa uu yidhi waxaan nici jiray in aan tago tababarka laakiin waxaan odhan jiray ha isdhiibin imika daal si aad ugu noolaato xilliyey noloshaada inta ka dhiman. Malcolm Forbes oo ahaa ganacsade Amerikaan ah isaguna waxa uu yidhi lagama yaabo inaad guul gaadho ilaa aad jeclaato waxa aad qabanaysa mooyaane. Filosofarka Greek-ga ah ee Socrates isaguna waxa uu yidhi nolol bilaa caqabad ahi waa nolol aan habboonayn in la noolaado. Gabayaaga iyo filosofarkii Amerikaanka ahaa ee Ralph Emerson isaguna waxa uu yidhi qofina ma awoodo inuu kaa xado guusha ilaa adiga mooyaane.